السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa caawa nala jooga oo martino ah oo aan wax badan iska wareysan doona Cabdiqani Cali Maxamuud iyo waliba Nasteexa Aare oo ku magac dheer Family Happy to Happy. In badan TikTok ka daawateen lamaanaha yar yar in badan sheekooyinkooda waa daawateen. Caawa waxaan soo hor fadhinaa inaan wareysiyo kala duwan iyo wax badan oo aydan ogeyn aan iska wareysano. Soo dhawaada Nasteexa iyo Cabdiqani. ودوها ولا العادي أدب مهتسنت هاي وأنا كله هاي ميديا شرفت بدل أنا وندوها دماشي وكله هاي ما شاء الله وايه waxaanu guda gali doonaa barnaamijkan iyo su'aalaheena kala duwan waxaan horta marka hore aad ugu faraxsanahay inaan caawa soo hor fadhino in badan TikTok teedin kala socday lamaanaha dhalinyarada ah ee isku faraxsan dad badan oo waaweyn oo nolosha ku feel garoobay maanta iyagu in badan dhaam waaya magaalada Hargeysa timaadeen muddo joogteen bal waxaad iiga warantaan Hargeysa iyo meesha aad ka timaadeen waxa kala duwan horta Hargeysa horta meelaha kale waxay kaga duwan tahay ta xurriyad baa jirta oo Soomaali ba ku wada nool ajaanib kale kuma noola mid labaad waxay tahay maanta qof haduu qalad ka galo Soomaalidiina ka qabanaysa adna way iska celinaysaa oo qof ajaanib maanta ku dhinac istaagaya mid jirto dadku cunsureeynaya mid kale talo waxay tahay inna lillahi habeenka salaada subaxda soo rawaxaysa sad u tuweysay lugaha ku daalaya maxaa dhada jawiga kana laga ma sheekan karo meesha ku haysta boqolkiiba boqol intii aad joogteen muddo badan maadaama aad ka maqnaydeen waxyaalihii ku yaabka badnaayad ku aragteen Hargeysa aad tiraadeen tolo Hargeysa miyay lahayd waxaan oo dhan waxa kamid ah horta aan weliga Hargeysa ma iman waayo markii kuugu horeysay waa markii ugu horeysay أنا ده يرنا وضعك ما كتجيو ده ما بقى قونين بدلال كباديجا وحن شبوتي كاهن ما قون ما لها كلام ولي جي ما إيمان نهارت واحد يقول يا بنا ضد كني ما كنت أفرق قلنا ضدك ها عارف محاق لا ده هيبقى يقول يا بنا إن إلا دريان بين مودي يعني ده قال بضو هاي سبحان واحد عسكر درموس عايا وين كفتم يعني عيدو ذو كفتن صح waxaa si ka sii daran day suuqa hadad u baxdid lagu kuma mashquulayo tii waad yaabsa dadka anu Cabdiqani waxaan ku dhimay Carbihii baan joognaa wax noloshani wala iska ka soconay lagu dhaafaya dadka caanka dhulalkaas xurriyad iska socdaan idin lama hadlayso jawigayga suu u dagan yahay magaalada tii waxaan ku weligay ma arag meel noocana waay adiga Nasteexa ahaan Djibouti waad ka soo jeedaa sax Djibouti waad ku dhalatay goorma wadanka tagta wallahi 2012 baan ka tagay 2012 ka tagtay markaas toos waxaad u tagtay Talyaaniga may Itoobiya de waan soo wada maray dhulalkaasi way goor inta goorta qurbaha tagtay qurbaha waxa tagay 2012 bishii shanaad baan tagay way Family Happy to Happy oo isku faraxsan ma sha Allah magac qurux badan leh xilmiyo kulmeen kulankoodii ugu horeeyay ama barashadoodii ugu horeysay halkay ka dhacdo wallahi odagayga ku fiican waxaan ku kalanay wadanka Talyaaniga aniguna markaa muddo yar oo wax yar oo gaaban aan ka soo horeeyay ilaa muddo 6 bilood od wadanka sii joogtay aan wadanka sii joogay anigu marka xiriirkayga wuxuu ka bilaabmay uun Talyaaniga markii ugu horeysay Talyaanigu ka bilaabmay laakiin qaab nuucay u kulanteen waxa marka hore khadban xagga hawada ayaanu ka wada hadalay markii dambe waan isku nimin safar dheer oo aan soo galay ala safar ka galay halkaas sheeko ku jirta way labadiina qurbaha waxa ku horeeyay adiga saadima ka sheegtay safarkaaga ugu horeeyay halkeed ka bilowday waxaan ka bilaabay Itoobiya gaar ahaan magaalada Tigtiga waaya toos markaasi waxaad sii martay rafaadkii iyo meelihii la sii maray intii aad jidka ku sii jirtay wata dhibaato badan ay dhalinyarada tahriibka maray la kulmaan wax dhibaato ma la kulantay dhibaatooyin horto dhibaatada waxay kaaga bilaamaysaa Liibiya laakiin intan lagu jiro sida Itoobiya Suudaan iyo magafu waa Liibiya magafu waa Liibiya yada wadada Sahara inta ku jirno dhibaatooyin kolley aad iyo aad u fara badan oo dadka la midkaan ay la kulmaan anuguna aan la kulmay oo halka ka caadi ka iska caadi halka ka
waan la kulmay walow dee aan maasha allah aan ka noolahay maasha allah oo dad dhinaca iyagu ay ku baxeen saxaraha waxaanu kala kulannay 4 cisho oo dee safara oo cunto la-aan iyo biyo la-aan iyo dee gaadhi ciriiriya oo moogtahay laysku boqoojinayo inaad dee neeftaanad qaadato mooyaane laakiin nafiska la-aanu jirin oo bac lagu hubinayo yacni dee dadkaas la diidaya inay dadku ku arkaan xaasidnimada jixintee gaadhigii qofka u wado sida adhiga oo kale lagu rarayo kadib xoosh baan gallay xooshkii oo de moogtahay nagula soo dhaweeyey dee dhangad iyo dee budh iyo dee keen lacagti iyo dee dhibaatooyin fara badan oo moogtahay dee markaan halkan aan joognay aanaanu dee maleysanayn oo aanu la kulannay laakiin marka waxaas halhalaad ku tagaysaa sawirkii dee markii hore aan dee ii sawirnaa yacni waxaa ii sawirnayd ani markaad magafaad u tagtid waa tanba yurub baa ii sawirnayd badda iyo inay isku yaalaan baan moodayay meeshan liibiyaduna isku ag taalo laakiin dee meesha safar dheer inay tahay oo moogtahay waqti ay u baahan tahay iyado ilaahay oo dee moogtahay kaa saara alxamdulilah kuley dee dhibaatooyin badan oo sida dee cunto la-aanta injirta dadka dee meesha nadaafad la-aantaha dee rag iyo dumarkii waxba aanay u kala qorsooneyn oo dee yacni qaybtii xishoodka ad halkaa dhegeysa oo dee xishoodkuna waa waxa dee dadka deda moogta waxyaalo badan oo aad dee dadka aad kala hadli jirin baad kala hadlaysaa kaale injirta iga gur wallahida dee waxyaalo badan waxyaalaha dee ila yaabka badnaa dee marka meesha aan u tegay dee igu adkaata inaan la qabsado sida dee inaad qof ku tiraado suuliga aad gacanta u taagatid sidoo kale suuligii jamac lagu wada galo 10 nin 10 dumar xagga kale iyaguna ay galaan wallahi caqabado badan meel soo dhameystiri kara markii adoo aad baad u da'yarayd maxaa kugu dhaliyay aad isku tira halkaas mar oo sax dhibaatada inta leeg aad ugu bareedha si falcelinta familkaagu sidee noqotay wallahi aniga horta waxa igu dhaliyay horta anu hal maalinun ayuun bay igu dhalatay ma garatay dhalin ka baxdo wadanka inaan ka baxo dhalintaasna waxaan u arkaa in aniga afduubanahayd yacni tashkiilin iyo dhalin aniga igu dhalatay baa wadamadii tagna gaadhaa lay saaray baan dhihi karaa markaa ma mir qabin baan dhihi karaa dhalinyarada gaari baa la saaray xol ilaa Suudaan wax lagu geynayaa iyo Liibiya lacag la'aan adna waxaas tiri wallahi wadinka Yurub ka degay laakiin dhib malaha wixii ku maray wad ka nooshahay mastaxay wadi ayra bal xoogaa iga warantay marada dhibaatadaas martay iyadana hayrasta halka toos uga tagtay adigu aniga jigjiga jigjiga toos uga tagtay saxari wad sii martay wallahi horta jigjiga anigu toos uga ma degine 2 hablood baa iga waalayahayd oo iga dhigay Addis Ababa inay Yurub tahay marka ilaahay kuma darnaadee waxay ku dhaadeen halkan laga baxo halkan inuu Yurub tagaysaaba marka dee gaari madow baa la igu riday dab oo lay qaadayba marka Addis Ababa waxaan ogaaday markii dambe inay beenta Addis Ababa ahayn dee xaaladu ka sii weynta xaaladu inta ka daran dumar baa ku ri meesha Yurub weeyaan jigjiga maxay Addis Ababa adu alxaasil aniga ma daragtay de anu isma lahayn ban noloshaas ka jirta Liibiya marka gaari lagu saarado dumar ah de xoogna waanu yaraa de marka 4 dumar oo kale way la 5 dumar oo kale way la socdeen iga waaweyn cedheerteeda kale wayna isirayeen xidhan jireen markaan shirka ku jira la yiraahdo kaalin nasteexa shirka soo galo odayaashu igu dhaadeen naxaan xidhan jireen nasteexa shirka ha galine kor baa fiican kor ful markaan ku lug aan kor korana waa meel la iska tuurayaba sida waxaraha dhinac haysata gaadhiga hadii saayreed u gadoonto way qoortad ka jabaysaa waa meedkaaga in halka lagaaga tagaa marka waxa dhacday wiilal baan isla socnaa anagu 8 wiil wax gabadha kaligeey baa ku jira marka hore oo isla soo lugayno rafaadka isla marnay wiilasha ma aragtay ka yimaado meelaha kale inay naxariis leen waxaad ku garanaysaa
wiilal baa isla soconay wiil kamid ah baa gaadhigeen soo fuulay ma garanay uu iska kaysanay phone baabuurkan wada fuushinka baabuurka dad saxarihi lalaya oo indhadhaga aan lahayn anoo dhinac yar haysta buu intuu saa iiga maroojiyay meeshii buu saa ii sii daayay uslaya tuur dabaysha ku qaadanaysatay tuur tuuraan mid kale labada lugood ku dhagay kii baa idhinaa nasteexay sii daana waan dhacday ila dhacbaan ku yidhi walaal maxaa keligii igu sallidaya meesha kii baa de markaa wiilkaa wuxuu ka yimiday meelaha kale ma garanay magacoodooda meeluu ka yimiday markaa waxa dhacday wiilkii haddaba markaa ka daadegnay anu waa iska ooyay markaa meeshii laygu soo celiyey fadhigii baabuurkii lalaya iyo wiilali soo qabtay inay soo fadhaysiiyeen markaa waan iska ooyey inaan awood meliho ninkan iskaga celiyeen waan iska wiilkii baa igu dhi nasteexay maalin baad ka aargoosan doontaaye amase ooyine doqomaha ooyaha ooyin buu igu yidhi ana aad baan u yaraa ciilkana nacayay dee waan iska ooyay markaan baabuur ka daadegna ku walaal maxaad saa iigu samaynaysa miyaynan ilaahay ka cabsoonin markaasuu waad u qalantaa oo walaal maxaa kugu sameeyey baan ku yidhi intaasaa isla soo safraynebe waxba kaaba galabsane maxaa kugu sameeyad iiga argoosanaysaa carshaan oo baabuurka iga tuurti lahayd wuxuu yidhi nimankii carabtaabaa lahaa inanteer baa idinka wadaadood badan inigoo nimana macnaa anigu dadka waan ugu socod dheereynayay xaasidnimo amaanay maadaama ana carabigan garanaya xoogaa maadaama musalsalada aan badsaday markaa waan la sheekaysan jiro carabta waxba iima diidi jirin isiiya un baan ku odhan jira wax walbaba maadaama ugu yaraana way siin jireen markaa uu iga maseeray markaa ana 2 wiil oo iigu roonaa baan siin jira waxaan soo qaato na dadka uma wada qaybin karo 2 wiil baa siin jira oo maseeray markaa علشان كوي كو ka dareemaysan naxariista ha 2 wiil oo dees ilaa hadda 2 wiil baa kugu roon baan wixii siin jiray kaxte xanaq alxaasil xooshki magafaha la tagay de xooshki magafaha ma jirto soo dhaweeya waa lagu baaraya marka hore in ma mobil sidid marka laga baaro waxa lagu odhanayaa halka fadhiiso saasad u fadhiisanaysa lagu la gaargaaraya baasha marka waxa lagu odhanayaa lambar waa inaad wacata xaafadiina oo lacag ka soo shuban aniga naxdintan odaygiyo dadka dilayaan arkaa ka naxay lambaradu waa bani laawada ma baxasuustaba ma garanaya lambar dhanba ilaa 7 cisho uu ninka ugu lahaa inaan ku googooyo miyaad rabtaa lambarada soo xasuuso adu ciidi carafo maray soo galeysay adu ka harsantay 7 cisho baa lambar kamid ah xaafadeedan soo xasuusto koola uu yidhi waay khadka uu ka maqanya waxa la iga raadinayaa Djibouti oo la isleeyahay way ka tageenba Ethiopia joogana tanada way ka bixeen mid kale habartay leedahay soo xasto kiibu ilaahay ii riday adoo alxaasil xaafadeedii ban iskaga ooyay waa iska garasha Liibiya markii la joogo alxamdulillah horta ilaahay waa iga soo saaray ma garanaysaa si kasta waxaan kaga soo baxay marka waxaan imiday Travelers meel la yiraahdo Travelers doon bi ilaahay iga soo saaray marka taariikh waxa ka gudubteen iyo badda markii aad ku tahriibaysay labada keedib badnaa ama naxdin badnaa badda iyo saxara wallahi saxaraha dhib badan labada badda la qaatay badda amba waa dhimanaysa amba waa noolaanaysa laakiin saxaraha gaajana wad u dhimanaysaa haraad baa ku dilaya ciida ina cunti wad iyad ku maskaxdaada ku ridanaysaa waxa taasi ka daran masas baa saxaruhu leeyahay xun mas habeen leeyli wax iska seexanaysaa banaan cad adoo waxba huwaneyn dabayshii qabowgu waa kugu dhacaysa team bay baa laga yaabaa in kugu dhacdo Liibiya la gashay xooshki magafaha team bay laga yaabaa in ku jarjarto marka wax kasta xataa waxa laga qaadayo cuncun jirka ah dadka qaadaysa ciidi marka saxaraha daran badda la qaatay badda ama waa qoranaysaa ama waa dhimanaysaa ama waad ka baxaysaa gaajana ma jirto ma sha Allah waxaad gashay Tripoli baan galay kadib alxamdulillah rabbil caalamiin ka baxay doontii baan raacay 2 cishaan badda ku sii jiray kadibna waxaan galay Talyaaniga waay kadib Talyaaniga waa toos ku gashay Talyaaniga toos u galay halkaas sheekada ka bilaabantay marka haya Talyaaniga wad gashay marka ugu horeysa dad kaaman baa lagu soo dhaweeyaa may marka taa u gashid wax lagu soo dhaweynayaa meel hoola ayaa dadka la iskugu keenay adiga maadaama aad yarayd dadkan oo dhan aad la socoto aad ka yarayd soo dhaweyntaada kuwa kale ma ka duwanayd mise isku si in baad ahayd meen wallahi hadaan si uu eego way ka yara duwanayd maadaama aan yaraa dadka kale waa la iga soo cay sax marka saasaan dhihi karaa anigu ma sha Allah waxaynu ku soo noqonaynaa marka nolosheedii yarayd ee habiga ahayd marka isbarateen waxaad tiraahdaa waxaan iska baranay Facebook ama khadkan iska baranay halka joogtay marka magaalo kala joogtay way halka iga sii soo 2 magaalo kala joognay anigu waxaan joogay magaalo la dhaho
talyaaniga ka mid a Aye. gobolka waa Lunguria waay oo u dhow xuduudka Faransiiska waay iyaduna waxay joogtay gobol kale oo talyaaniga laga soo galo Sicilia la dhahaa waay meeshii laga baxay meeshii laga soo gelay waay laba qaaradood baan kala nahay hay safarka anigu aan u geliyey dee ma shaqaysanayn waay luuqadna ma garanayn waay maxay ahayd toolay wadankana maan garanayn habka tareenada xitaa loo raaco maad garanay maan garanayn waay waan dee ninnimaduna way igu jirtay adayg ba kugu haa jiro oo dee nin dee gabadh u socduun baan ahaa waay ma garatay waay xaggeeda dee waan iska adkeynayay laakiin aqoon kale markay soo gashay wadankii bay ku tiri waan joogaa haa waay marka aqoon kale dee oo wadanka amaan lahayn Maan laakiin lahayn. dankeeda waan iska geejinayay fariid hay adigu keligana waan ahaa goor ilaa iyo ay tahay 2 duhurnimo meelaha iyadu markaa 3 jeeroo hore ay aniga iisoo safarteen ku yidhi Sax. meel dhexe isku keenkeen si fiican ayaa adugu la qabtay iyaduna dee anigu way iga sii darneydba waar oo dee qof cusub bay ahayd waar anigu waxaabaan fahmay inaan moogtahay qofna qof aanu dee waxba ku dhigi karin halka doonta aad mari karto inta anigu waan fahansanaa laakiin may iyadu dee intaana may fahansaneen waay iyo tareenka shaashaduu leeyahay sida loo eegto qolalka laga raaco waay waxyaalaha anigu waan dee yara fahansan waan yara fahansanaa laakiin iyadu way iga sii darnayd waay kadib adigu waa la qabtay iyada mar xitaa ay derbigoo kale ay kasoo booday mar ay xilli dhaqsaq dhaxa ay kowdii habeenimo kale ay soo baxsatay oo meeshii ay ku jirtay ku soo baxsanaysa si adiga soo aragtaan aniguna dee kontantii xitaa aan la sameeyo markaan raagsaday ayaan ku yiri aniga haddaba aan soo baxaya adigu iska joog adigu iska joog waay sidii baan anigu ku soo baxay tareen baan iska soo fuulay cidlo cado madow dadkana dee markaa ilaahayna dadka uu iga nixinayay dee waana dee jir yaraa waxaan lahaa un dee iskuulkan usii socdaa markaan iyaga is aragno iyaguna dee iskuulka waxyaalaha way uga qadariyaan iyo ardayda aad iyo aad bay u qadariyaan iyo dee dadka da-da yarana dee ma dejiyaanba marka taa baan ku baxsaday toos baan iyadii ugu tegay habeen iyo maalin baan usii socday habeennimo waxaan seexday meel beera oo moogtahayey oo cidlaha oo staadisyono kale kasoo horjeeda magaalada wax la dhahaa torina la dhahaa beer weyn kole intii qurba jooga way garanaysaa halkaasaan habeennimadii aan u seexday saabaan tareenkii subaxii laseydii aan ku tegay aan ku raacay halkaaba markaa magaalo la dhaho balonia ayaa wiil aan isku magacnaho cabdiqani la dhaho iska raacan wiilkiibaa adugu 5 saac oo kale ila sii safray iyadii baan u tagnay kadib waxaan ku soo baxsay maadaama iyadu ay magaaladan tagnay tuulo kale ay u dhoweyd sidiiba iyaduna dee derbiba haddana kasoo booday orod bay kusoo xoqday waxay noogu timid halkii tareenka laga raacay baqashana nagu jirtay oo dee waanu cabsanaynay waxaan islahaa dee boqoradaada oo lagaa celinaya halkaabaan dee laabgelis baa ka dhacday maasha allah xoogaa yar tareenkii baan sugnay halkii baa runta ugu sheegaan ku yidhi dee gabadhay dee waxna islama hayo inaynu tareenka raacnana waan rabnaaye dee albaabkaa kasoo galana albaabkaasaan kasoo gelaya bal intaa sheekada iyadana dhiibaya waxay dareentay iyo sida qosol wallaahi horta qosol marna waa naxdin ana horta cabdiqani waad aragtay maalinkii koowaadaan arkayay nin dheer buu ilaa ahaa shuu anaa kamida casho xidhnaa isna buur buu xidhnaa dhaadheer markaan habsiinay ma garanaysaa oo ila dheeraa ku dhunta horta cabdiqani maad aragtay waa indhahayga baan isiri berigaas imika laakiin markaas dhinac istaagno waan lacagkahay aduu ilaa garabkaana ku dhaca intii romantiga igamana dheera igamana gaabno aduu dee nin raga waxaa loogu talagalay gabadhu inay intaa laabta ugu dhacdo suu qalbigu u qabo marka ku tiirsato
ma garatay romantic iyo jacaylkuna saas ku qurux badan yihiin in sujuuda marka laga dhunkanayo ku gaadha afkiisu ma garatay in lagu soo qooraysadana ma fiicno laga gaabnaadana ma fiicno marka horta odayga ma aragtay waa midaan ku maalay ma fahantay nin raga intuu boqor yahay ilaahay baa boqore ayuu boqor yahay horta halkan ilaahay horta hiidaayo odayga midaan jecelahay ma fahantay dibda iyo rafaadna waa isla soo marnay intuu waay allah ku daayo amiin tareenkii nagu celiyay ku kortay horta tareenkii waan kala dhuumanay waay dee lacag ma hayna soo maaha waa in isla dhuntaanaan dhuntaa okay si aan laydin dareemin okay markaan gallay kadib yaan isku meel nimidnay waay marka waxaan iska dhignay ninkii lacag lay markuu na soo agmaray lacagta ururinayay qaar hurdaba waan iska dhignay isna dhankaas way kaga seexdana dhankaas kaga seexday dhowr jeer markuu nala hadlay waba quurinayaa baan waa iska dhaqaaqay waa iska dhaqaaqay ma dad quurinayo kacin kara geeya caawa waliba wuxuu sonay waa yar yar way soo daaleen duruufna way iga muuqatay horta siiba aniga isaga waaba soo yara cascasaaye anu degay dhanba ka soo booday soo maaha siigaan soo galgashay marka dee digintaan hayo dhar yaroo iska uskagana waan xidhnaa maadaama dee xooshin meelna aan ku jiray dee maxaa la dhihi jiray aan ku jiray gaala kaama dee kaamkina dharna ay jirin oo dee la iska uskagahaa maadaama aan ku cusbaana waxaa laygu dharkan kuu doonana kuu soo iibinaynaa dee ninkan ayaa cadda aniga isagaan dee besanka ninay meelo cadday meeli ka madow marka isagaan usoo orday marka alxamdulilah hata ilaahay si nabad nagu kulmiyey safarkiina soo raacnay tareenkii soo raacday markaas adigu totally meeshii aad joogtay aad ka soo baxsataad rabtay ani waxa ii darnaa inaan qof Soomaaliya la kulmo meeshuu joogay isaga ugu timaado Soomaali baa ii darnaa markii hore inaan la kulmo waayo Soomaali ma arag bildan Soomaali ma arag marka waan waalan gaaray mobile ma haysan mobilka asaga kala heli jiro kuwa meesha ay leeyihiin baan ku oran jiray hooyadii baan wacnay isaga wici jira marka ani waxa ii darnaa inaan qof dee Soomaali oo ku tiirsanaado inaan helo maadaama dumar ahaan dee wax kasta u baylahana dee ilaahay nasiibkaygu isagu igu hagaajiyay qof kale aduu hala wiil goyn lahaa garanaysaa marka ani waxaan kana baqan jiray inaan dee aan cilla ku dhaco hadhowda sida hablaha loo silciyo Yurub la ii silciyo maadaama aan yarahay marka wakaade tareenkii halkuu idin keena tareentii wuxuuna keenay magaalo Balonia la dhaho magaaladan wiilka ku kulmay doono wiilka iga soo raacay Cabdiqanigi kula inanka mar walba waan xusaawayo maxay toolay waa qofkii kaliya yani guurkayga aan ku sheegan karo inuu moogtay uu socdi la galay hayaanka habeennimadii markaan magaaladii aanu nimin isagoo ku dhiisay isku marun baan ahayn badaan isla marnayo maxay toolay isagoo ku dhiisay guri ma haysan markaa guri ma haysan isagu markaa wuxuu nageeyey meel kharaabadu nageeyey oo meel kharaabada oo la seexdo oo dee adigu sidaan aan ahayn halkii baanu tagnay halkii baanu iska wada seexanay habeennimadii kadib subaxnimadii aan kasoo jarmaadnay markaanu saa u soo kacnay waxaan usii jahaysanay magaaladan deganaa anu aan ka yimid marka halkaas adigu tareenkii baan haddana dee sideedii baanu kusoo wadnay ilaahay uma dadkii naga indhasaabiyey marka intaanan tareenkii aanu gaadhin waxaan ugu dhacday inaan bas anagoo tareenkii usii saaran inuu nagu arko ninka dadka maaragtay qanaaxa dadka qanaaxa anu markiiba ishaan qac ku siiyey kadib waxaan ku yidhi warna dejiya ninkuu soo galay ninkii bahalka dadka qanaaxa waa bas ninkii wuxuu yidhi markaa sharciyadiina keena anu markaa sharci waa haystay wiilkan kalena magaalada abu degan laakiin nasteexoda iyadu sharci ma haysanaha markaa waxaan anu haddaad adigu dhiibto meeshana fasax aanan kaga iman haddii dee aad dhiibto iyadana khasab waa la weydiinayaa kadib waa la kala celinayaa ma haysanaan ku yidhi marka adigana kaaga waan dafir anuguna haddaanu isdhiibayna dad cusub baan ku yidhi hadda waxaan u soconaa xarunta booliskan ku yidhi
ninkii ina mariyuu yidhi uu diiday amba sharciga keena ama waa idinkaxeenaya meesha markaa waa xalqadii ilaahay marso dadku waa meel wada jaama ummadii oo dhan baa maraysa ninkii uu nagu goosa adkaaday waxaan yidhi nasteexoy waa inaad orodnaa lugaha wax ka dayay war adiguna waa inaad orataa askartii waa wacaya wac baan ku yidhi markuu wacay orod baanu dhagac ka siinaa saddexdeediiba dadkii baanu dhex yaacnay dee tareenkii baanu wiilkaa magaalada noo geeyay tareenkii buu na geeyey sidii baan markaa aan kusii safarnay magaaladii halkii aan habeennimadii aan usii seexday baan usii safarnay magaalada torina la dhahaa halkaa baanu ka bedelanay toos habeennimo aanu galnay magaaladii intii aad markaasi jidka ku jirtaan xagee ka helayseen waxa cuntaan iyo waxa cabtaan wallaahi de waxaan cuniga waxaan cabno koley dadkaasna dee wax way noo keenkeenayeenoo guryahooda nooga soo dhiibayeen walow aanay awoodeyn dee inay dadka aan markaa aqaano gaashaa ku dilaysa anu de maadaaman xishoonayo ninkana ku cusbahay waxdaarbasaa u adkaystaayo ayaan lagaa dareemi haddana caloosheeda waa laysku dhexlaynayaa gaajada aawadeed dagaalka eriya esiya ka socda marka adigu dee anigu sidii hore habeeniya maalin baan usii socday anigi halkaas seexday iyaduna dee waatiaan habeenkaan halkaa akhraabada seexanay iyo maalinkaanu soo soconay sidiiba marka aan magaaladeedii ku tegay inanbaa isaguna habeenkii koobaadna soo dhaweeyey oo dee dhuumasho aanu ku galnay meeshiis subaxi baanu ka jarmaadnay dadkii markaa qoladii haysay baan u tegay adoo nasteexana wata anoo nasteexana wata aan ku yidhi dawaagtan gabadhan u cararay gabadheeda iyagu may ogeyn markaa iyagu waan dulgeeyoon marka dulgeysi waayo dee familkii wixii ma ka dhamaysanay iyagana dee waxaan ku yidhi waa kan gabadhaydii familka intaydan eeg markana waa markana tareenka wada raacdeen wada silicdeen iyadana meesheedii ay kasoo baxsatay familkana dee dhan baan ka wadnay familkana dhinac baa kala hadlaysay kowdii hore intii aniga meesheedaba kasoo bixin intaana meesha ay kasoo bixin iga dabagee marka familka sidii aad ula hadasheen iyo sidii ay suukan ogolaadeen iyo sidii wallaahi familka koley mar walbo aad moogtahay aad wax kaa daaweyn aad sameynaysa khasab caqabado badan way kaa hor imanayaan